ما شاء الله شيخنا الفاضل، جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك. شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى هكو بركتيو ذنبك ذنبك والد كان الله دافع. شيخنا الفاضل ما شاء الله جزاك الله خير. شيخنا الفاضل في موضوع هذا أتكهر لي أي قبر إنه يدير هو حلالها من كيف إلى ما عياره وكجعلها أنا إيما قورو وحبا يرات نحريفة أو قصحب سنجعلك ويقبنا ولقي أفكيسة كما صبحين أريا كلا تؤرن هلكن كشري كرينا وأي شيء لكن ونكسب سنتا شيخنا الفاضل لكن إنا نقبض أوجد جبنين أو أنا جنين جعلك وقبه فليتفضل مشكورا وماجورا شيخنا الفاضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هدينا سؤاش الإمام دون تماما أن الأوجين مركان كلمة دورين لكن وفضل إلهي هي التوفيق من الله تبارك وتعالى. منك وحان ربعنا ويدي السؤال حاسك تصدم حاسك شركة كوبا نيسي حاسك أتكه شيء وح يورالها هو يدا يورالها يدوين كآدم كهرين أتكه شيء gabadhii kaaga soo tagtay reerkoodii ka jeclayd inay mustaqbal kula dhisto gabadhii ka qayb qaadanaysay shahawaadkaaga iyo dareenka ku gubaya ee ilaahay kugu abuuray ee khariisada ah subxaanahu wa tacaala gabadha caruurta qurquruxda badan ee jeceshahay ee aad ku naaloonayso berri inay kuu gaadhaan kuu dhashay war gabadha magacaa jiriye haddaad u quuri weydo xabiibtii ama hadal macaan aad kula hadli weydo ama ficil macaan ay kaa arki weydo talow yaa oo yaad siin doontaa ilaahay wuxuu leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf war dumarka wanaag kula dhaqma laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana kudayasho wanaagsan nabi moxamed ma cid naloo sheegay baa jira in lagu daydo oo aan rasuulka ahayn sala allahu calayhi waali wasalama bal nabiga waa jeceshahaye laga yaabo inaad siiradiisii jahli kaga jirta ama axaadiisiye bal culummada intaad u tagta ii sharxadhe nabigu sidee buu xaasaskiisa u raaligelin jiray hadalkeebuu hadallada macaan iyo siduu iyo ficilka macaan xataa wuu la orotami jiray way dhacday inuu nabigu la orotamay sala allahu alay wasalam way dhacday kaftankan asaga qalbiga ee daaweynaya ee arlada ka badan maba kusii jirtaba waxaa cajiiba oo aad iyo aad u liyaa badan alla madaxayow alla anigana madaxayow markaasuu nabigu sal ly slam oo caaisha haddaad iga hor dhimato maxaa dhib oo ku jira anigaa ku dhaqi oo aniga maxaa la yidhahdaa ku kanfi oo qabriga kugelo kugu tukan halkaa markay maraysay tiri waan gartay inaad gadaashay islaan kala guursato ayaa doonaysa war kaftanku wuxuu ahaa shay cajiib ah oo nabigu sal ly slam yaada aludunayn yani laba dhagoodlow fiiri xageed ka timid naxnu min almaa biyo ayaanu ka imaanay waxaasoo dhan waa iyo kaftankii nabigeena sala allahu calayhi wasalam war yaa addoonkan iga iibsanaya nabigu saasuu u kaftami jiray yani kumana kaftami jirin ilaa wax aan run iyo xaqiiqo ahayna kuma kaftami jirin nabigu sala alla alay wasalam siiradii iyo salafkuna aad bay oga buuxdaa war gabadha aaskaaga waa qof dumara oo jilicsan oo mar wallacaysa oo mar caado ay ku dhacayso oo mar xaamilo noqoni oo mar umuli oo mar waxaa la yidhaha intanu carruurta iyo jikada iyo baambarka iyo maxaa la yidhaha hurda la-aanta iyo mid baa xanuunsaday ilaa alaa tattaqillah miyayna u baahnayn hadal macaan oo qalbigeeda daawo ku rida miyayna u baahnayn macaan oo in miyaynan gabadhu ayna xaq u lahayn sidaa daraahay adiga iyo ragga qaqallafsanee adag ee sidaa haddaayo aan soo tilmaamay ragga weli ay habeedii geela ku taallo ee aan weli waafahminba oo quruuntii adduunkii meeshu diin qur-aankoodii iyo sunnadoodii ay yani siisay tarbiye cajaa'ib badan iyo nabigoodii calayhi salatu wasalaam hadday xataa meelahan iyo oroba iyo america iyo hadday yimaad yani dad wax aqriyey oo wax akhristay oo ilbaxnimo sameeyey ay yihiin hadduu weli uu qofkii soo taataa soo wax cajaa'iba ma soo wax la yaab lama soo wax la yaab malama nin dhahayo odhaysa sheekhow ninkaygu
guriga markuu soo galo ushu igu bilaabuu carruurta dhexdooda igu dilaa calooshuu igaga istaagaa 10 ulood buu igu dhameeyaa soo wax la yaab lama waa wax aad iyo aad u yaab badan wey awa siiradii nabiga awa dhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam war ha loo jilicsanaado dumarka u jilicsanaada oo dumarka hadal macaan kula hadla oo dumarka ficil macaan oo wanaagsan oo latiifan u sameeya oo u qosla oo u dhoolla cadeeya oo u jilicsanaada ninka dadka ragga ugu akhyaarsan waa ninka ogaada hadda waxaa la moodayaa inuu nin liito oo saas aho islaantiisu ka adag tahay oo waa tashwiishka ragga maskaxdooda ay isku furaan wey may waxa weeye ninka ragga ugu akhyaarsan waa ninka xaaskiisa u fiican nabiga sal ly slam khayru nnaasi khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi ninka idinku khayr badan ee idinku sharafta badan ee ahlu sharafka loo yaqaan ee loo ixtiraameen la qadariyo ee jada fiican kale waa ninka xaaskiisa u fiican buu nabigu yidhi bal u fiirsa xadiidka anigana ninka xaaskiisa ugu wanaagsan yani xaasaskiisa midka ugu wanaagsanna waa aniga ana khayrukum liahli ayuu nabigu lehy sala allahu alayhi waali wasalam liahlihi aw kama qaala calayhi asalaatu wassalaam waxaan leeyahay marka walaalkaa iyo walaalaha imaqlaya hadda iyo kuwa imaqli doona intaba war xaasaskiinu addoommo idin yihiin addoommo u noqda xaasaskiinu waa asiirun cindakum nabiga naska xadiidkiisa wey waa asiirun cindakum waa dad la soo qafaashay war u naxariista dumarka war dumarku waa qawaariir war dumarku waa dhalooyin iyo qiniinaad war dumarka quluubtooda ha jabinina kelimo yar qosol macaan ficil wanaagsan ayaa xabiibtii adiga la'aanta miyaan joogi karaa adiga la'aanta ma anaaba moodaya inaan nin ragga noqday yacni markaan ragga ku dhex jiro sharaftaada ayaan xusuustaa saad quraacda igu samaysay iyo saad cuntada igu samaysay iyo hadalkii aad igula talisay qiimaha badnaa ee caqliga ka duulayay markaan xusuusto ma adigaaba dumar lamid ah intaa dasay dumarku u baahan yihiin sanado badan bay kugu shaqayn 6 sano iyo 6 bilood inta u dhaxaysa ma soo jeedsanayso laakiin ragga doqonnimo iyo adayg waxaa haysa aan la garanaynin warragow dumarka u jilicsanaada abu talxa ma dhihina nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam haddaad ragow nabiga jeceshihiin ragow haddaan nabiga jecel lahay aan isku daree sala allahu calayh wasalam war nabigu siduu reeraa oo la dhaqmi jiray iyo siduu dumarka ugu naxariisan jiray aan ugu naxariisano sala allahu calayhi wasalama wallahu aclam ما شاء الله شيخنا الفاضل